Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta dhammaantiin waan idin salaamaya meel walba aad joogtaan iyo goor walba ay idin tahay waa brotherkiini iyo waa channelkiini aad uga barateen had iyo jeer inuu idinla soo gudbo ama idinla soo wadaago barnaamijyada markaasi soo kordha. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago hadduu ilaahay idmo insha allah tiktokgaaga qaabka markaasi aad online uga dhigi kartaa ama offline aad uga dhigi kartaa, yacni qof maqan ama qof joogo kale sida whatsapp kale aad iskaga qarin karto dadka adigoo jooga haddana aysan ogaanaynin inaad joogto iyo in kale. Tiktokgana qaabkaasoo kale waa samayn kartaa. Maanta ayaan rabaa inaan kula wadaago oo aan kaa dabageeyo inta og waa ogyihiin intaan ogeyn ayaan ka dabageynayaa videogan haddii uu ku soo gaaray waxaad nagu caawisaa in markaasi like-ta noo saartid like-taada oo noo saartidna waxay naga saacidi doontaa in asxaab kale oo barnaamijkan u baahnaa ee markaasi gaara insha allah dolayra. Marka waa ogtihiin inta badan waxaa soo dhigaa fiidyada noocan oo kale oo looga hadlo barnaamijyada markaasi ama ababka oo kale iyo waxyaabaha soo kordha oo kale looga hadlo. Waxyaabo badan ka soo hadlay oo ka mid yahay abkan oo maxaa Kenny Minister oo ka mid yahay ababka CapCut oo kale waa ka soo hadlay fiidiyoyada ababka lagu macnaha ababka lagu edit gareeyo waa ka soo hadlay in badanaa waxyaabo kalena waa ka soo hadlay. Marka insha allah bil ama 2 bil miya 3 bil ama ka badan hawada waa ka maqneen sidaas darteed marka yacni hadda xogaa yar viewskeedii dib ayuu u dhacay ama dadka nagu xirnaa ayaa markaasi xogaa naga nusqaamay. Marka sidaas darteed waxaan idinka codsanayaa inaad videoga noogu dadaashaan like-ta noo saartaan haddii aad noo share gareyn kartaane aad noo share gareysaan insha allah dolayra. Hadda barnaamijkeeni ayaa galeynaa waxaa soo geli doontaa tiktokgaaga ayaa soo geli doontaa. Tiktokgaaga markaa soo gashane wuxuu ku keeni doonaa wajahadan ayuu ku keeni doonaa. Wajahadan markuu ku keenana waxaa ka dooran doontaa haddii waa la idmo insha allah qaybtan ay ku qoran tahay post gangan ama adiga waxay kugu soo baxaysaa notification. Qaybta markii aad video soo dhigto oo ay dadka macalaha ay kugu soo diraan dad kugu soo diraan yacni video markaa soo dhigto kale dad community soo qoraan iyo qofka videoga like saaray iyo waxa oo dhan ma aragtay meesha aad ka arki lahayd. Marka meesha notification-ka ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. Haddii adiga luqad kale ku saarayana luqad kale ayaa ku saaran. Meesha notification-ka ku dhufatid qaybtan kore waxaa uga jeedaa meeshan ay ku qoran tahay post gangan aniga waxa igu qoran afka luqadan aan joogo waddanka aan joogo luqadiisa igu qoran adigana yacni wixii kuu saaran ayaa kugu soo bixi doona af English ama nooc kale. Halka sare ayaa ujeedaa dhibicdan cagaarka ah sida ujeedada dhibicda cagaarka ah. Marka dhibicda cagaarka dusheeda ayaad ku dhufan doontaa. Markii aad sida ugu dhufatana waxaa halkan ku soo bixi doona activated status is friend sister bar yacni haddii aan meeshaan hoose ee ku qoran tahay activated status haddii hadda meeshaan aad tiktok ka qaado calaamadda mujeedin oo cagaarta ah way baabi'i doontaa oo lama arki doono. Marka inaad tiktok ku jiro iyo in kale qofna ma ogaan karo. Haddii ay tiktok saarnaatana oo maas cagaar yahay waxaa arki karo qofkii aan asxaab nahnay ayaa wuxuu arki karaa ama qofkii intoo isoo diray qoraal isoo diray aan ugu jawaabo kale qofkaasna wuu arki karaa in aan markaasi online ahay. Marka hadda tusaale markii aan tiktok ka qaadno waxaa ujeedaan bogta cagaarteeda ama dhibicda cagaarka ahayd inay baabaaday. Haddii aan tiktok saarno sideedii ayaa ku soo noqonaysaa. Marka halkan waxaa ku qoran sagen deine fronden following iyo following then do even follows just to active beast or for course active arrest. Halkaas waxay ka macno tahay yacni dadka adiga ku soo follow gareeyay ama dadka adiga follow tihiin waqtiga kuugu dambeeyay adiga active ka ahayd waqtiga adiga active ka tahay ama waqtiga kuugu dambeeyay active ahayd waxay ogaan karaan inaad hadda active tahay
Haddii kale waxay ogaan karaan haddii aad ka baqato oo TikTok ku dhex jirin waqtiga active ka ahayd iyo saacadii kugu dambeysay iyo daqiiqadihii kugu dambeysay ayay ogaan karaan. Marka halkan ayaad ka xiran kartaa kana furan kartaa. Hadda waxaa kaloo tusaale idinku siinayaa asxaabtan hadda sida ujeedin dhashii awdal waxaa ujeedaa waxaa u saaran dhibic cagaar ah way ugu jirtaa TikTok waqtiga la joogo way daawanaysaa fiidiyooyin iyo waxbay daawanaysaa. Jiijo sidoo kale mar la arag gabadha ay ugu qoran tahay sidoo kale dadkan kale waa wada offline oo way ka maqan yihiin ama waa ugu xiran yahay. Dadka qaar way fahansan yihiin oo way xirtaan dadka qaarna ma fahansano oo way iskaga furan yahay. Marka sida ujeediin qofku markuu TikTok soo galo oo appka uu ku dhex jiro wuxuu kuu sheegayaa inuu online yahay oo markaasi qoraalka u dirto uu arki karo hadduusan live ku jirin. Yacni live hadduu ku jiro waxaa laga yaabaa inuu qoraalkaaga kor ka arko laakiin uusan gudaha u soo galin. Marka sidaani ayaa TikTok-gaaga waxaad ugu samayn kartaa inaad offline iska dhigto ama in aad iska dhigto online. Labadaasi ayaad ka walacaysan kartaa. Marka haddiiba aaba joogsidbo online iskaga dhigo si dadka marka ay qof inuu kula soo hadlo rabo kusoo fiiriyo qofka online mise offline uu wax kuu soo qoro. Si aad qoraalka uu kuu soo qoro dib ugu arki lahayd waxaaba wanaagsan ba qoraalka in qofka waqtiga aad joogtid oo la soo fiirsado oo kuu soo diro qoraalka. Waxaan u maleynayaa inay fahanteen oo aad ila garateen. Waxaa idinka codsanaya mar labaad asxaabay inaad YouTube-ka aad kor ugu qaadaan anigana inta dadaalkayga ah in markaasi aan soo badiyo fiidiyooyada noocyadan oo kale ah oo idinka aad wax ka faa'iideysiin oo markaasi wax faa'iido ah ay ku jiraan. Fiidiyo iyo waxyaabo fiidiyo aan waxba laga fahmayn inaad soo dhigane aniga inaan waqti iskaga bixiyo ma rabo insha Allah haduu la yiraahdo. Aad u mahadsantihiin. Asxaabta kale aan ogeyna TikTok-gayga waa halkan ayaad iga soo follow gareyn kartaa TikTok-ga. YouTube-kana waa isla joognaa insha Allah haduu la yiraahdo. Kulankan mid la mid ah intaan ku kulmi doono waa brother-kii iga tagaya. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.